السلام عليكم ورحمة الله وbarakaatu kusoo dhawaada habeen cusub iyo wellness with Kram waxaan rabay inaan ka hadlo arinta oo ku saabsan caruurta iyo sidee caruurta loola sheekeysan karaa a lot of times badanaa waxaan arkaa familiyaal badan oo ilmaha because way yar yihiin la sheekeysanaynin ama su-aalo qaarkood weydiinaynin especially ilmaha markay yihiin markay iskool bilaabaan kindergarten 5 sano 6 7 8 ilaa يعني saddexaad camal ay ka gaaraan is very crucial time way for their life and it's important in cunuga lala sheekaysto oo la ogaado muxuu ku sugan yahay iyo waxa uu ku maqan yahay markii iskoolka la joogo so I thought waxaan is dhahay haddii masalan su-aalo yar aan dadka aan la qaybsado oo caawinayaan si ay u caawinto sidee cunugaaga uga hadalsii kartaa a lot of times I know like ani hataa caruuran leeyahay so markaan dhaho waryada how was school today aan maanta iskoolka soo ahay fine aan lay dhahaa okay laakiin it takes inaan like la fariisto oo aan weydiiyo su-aalo qaarkood si aan more information u helo so su-aalahaas waxaa ka mid ah masalan cunuga it's very important waalidka inay weydiiyaan cunug qof yahow iskoolkaaga ma jeceshahay hebel iskoolkaaga ma jeceshahay because su-aashaaseyto ilmaha way ku fikirayaan wax yar markaa weydiisid way aamusayaan hore kaaga jawaabayaan markaas haa ama ma ay ku dhahayaan and depending on dhinacii oo u baxo hadduu haa ku dhahane it's important inaa weydiisid iskoolka maxaa ku jeceshahay maxaa waxyaabaha iskoolka ku jeceshahay yaa saaxiibada ayay yihiin magacyadood ciyaaraha maxaa isla ciyaartiin maxaa markaa qadaynaysid yaa la qadaysaa yaa la fariisataa it's very important because ma xisaabi kartid halaha cunug oo la buligareeyo iskoolka oo qof rabta inay la qadaysa ay jirin soo markii la qadaynaya miiska dhinaca goonaha oo keligiis iska fariisana because dadka waxay dhahayaan masalan just waa la riixaa you know sabab wax le u sheegayaan way xumeynayaan hadalay dhahayaan so ilmo badan oo waxaa jiraan unfortunately sad oo faraxsaneen oo dadka ilmaha la sheekeysanin oo goonigood u qadeeyaan masaakiin inay yihiin camal so it's so important cunuga inaa weydiisid maanta yaa la fariisatay yaa la qadaysay you know maxaa ka hadasheen hadduu roon yahay like shanaad lixaad hadduu yahay so maxaa geemka cusub oo iskoolka laga hadlooyo maxay tahay inaa la weydiiyo hadduu cunuga ku dhaho iskoolka waa necbanahay it's very very important inaa ogaatid cunugaaga iskoolka muxuu ku necban yahay dhibkoo iskoolka ku qabo uu ku necban yahay muxuu yahay so masalan cunug yaraa la sheekeysanayay daraad iskoolka waa necbanahay dhahay maxaa iskoolka ku necban tahay maxaa ku nacda you know ilmaha way qaylayaan okay so qayladaas ita adima ku dhibaysaa maxay kugu dhibaysaa maxaa dhibka oo kaasoo gaaraya hadday qaylayaan adma iska qaylisid afkaaga iska furatid iyo cunuga mala dilaa mala buli gareeyaa allah raf buliin ha jiro ilmaha aad iyo aad aan loo buli gareeyaa wadamadan aan joogno ma ogaan karno qof yani iskoolka ma ogaan kartid ilmaha oo dhigtaan meelay ka imaadeen iyo guryahooda xaalkooda intuu maraa ilmo oo waalidkood soo xanuunjiyanaa jiraan oo ilmaha kaleeta iyo kan xanuunjinayaan ilmo oo darooga isticmaalaynaa jiraan oo familkood daraaga isticmaalaan oo caadi ka tahay oo iskoolka keenayaan ilmo nadiif ahaynaa jiraan so cunugaaga iskoolka markaa u dirtid ma iska filan kartid dad nadiif inuu la dhaqmooyo oo is aamin yahay cunugaaga aamin ma aha cunugaaga la sheekayso ogaa cunuga waay oo iskoolku necban yahay haddii la dilo yaa dilo maxaa loo dilaa hal qof miyaa dad badan maa dilaan haddii la xumeeyo oo la caayo maxaa waay hadalad la dhahooyo macalimiinta ma u sheekiyo maxay ka qabteen waay adi guriga u fadhisaa cunugaaga hadduu dhib qabo ogaa waa dhibkiisa maxaa u sabab tag iskoolka macalimiinta la hadal ogaa cunugaas maxaa laga qaban karaa and I think cunuga runtii hadiiba dhacda heer oo iskoolkaas necban yahay it's important cunuga iskoolka inaa ka bedeshid iskoolka ha ku haanin cunuga hadduu iskoolka dhib ku qabo ka wareeji school of choice aa jiro iskool kaleetaa jiro oo magac xaafada le laakiin iskoolka cunuga dhib uu ku qabaa ha kusii daanin especially hadduu yahay you know koowaad ama labaad hadduu yahay aad iyo aad u yar yahay si oo hadda dhib iskoolka usoo ku qaban afka isku sii qabtay indhaha oo iska sii adkaysta just because xoog ma laha oo ku dhaho ma iskoolkan ma aaday beri markuu xoogaas yeeshto oo adkaado wax yar iskoolka dhan guha ama heer oo waxay gaaraysaa iskoolka adina u dirtid oo isna darbi fariis oon bilaabo because ma rabi inuu iskoolkaas aado
so haddaadan ilmaha koodii markay yar yihiin aadan daba dhiganin aadan ogaanin waxay ku sugan yihiin aad oo cunuga dareemin hooyada iyo aabahay way garab taagan yihiin haddii lay qashqashaada haddii lay dhibo iskoolka kor u qaadayaan si oo just xaqiiga ay ugu keenaan cunug kalsoonidaas inuu lahaado waaye maaha inuu cunug maskiin camal oo cabsahaayo oo hooyaday aabay wax ma ka qabanayaan oo dhahaayo so please dad yahow I want inaa idin soo gaarsiiyo the importance of ilmaheena inaan ogaano waxay ku sugan yihiin waxay suubinooyiin waxay ku maqan yihiin ilmaha garab inaan siino because haddaan hadda siinin hadhow waan ka shalaahayna beri marka cunuga darbi darbi fadhiisashaa loo bilaabo khamre iyo darooga oo isticmaalo geenga oo naga galo anakaa dhib ku qabno anaka as a community aan dhib ku qabno waalid kaligiis ma aha waxaaneeto dhibkii soo gaara hal cunug soomaali anaka dhan wuu soo gaaray so please mida kale ilmaheena waa isku wada xiran yihiin we try ilmaheena inay I try cunugeyga inuu soomaali la sheekaysto soomaalida ku dhex qasnaado laakiin hero waxay noqonaysaa markaan arko cunugaaga inuu bilaabe daro iyo darbi fadhiisashaal inaa cunugeyga ceshto oon dhaho waryaa ha u dhawaanin hebel agtiisa haddaa kugu arka iska jir because I don't want dhibkiisa inuu isoo gaaro aan haddaa kusii daayo dhibkii anna waa isoo gaara so marka waxa waaye inaa as a community isla fiirin ilmaheena inaa isla ilaalin ilmaheena laakiin guriguu ka bilowda ani haddaa ogaado cunugaaga inuu dhib qabo ma awooda inaa iskoolkiisa tago oo caawino adaa kusoo sheegaa because wax kale ma qaban kari halaasaan ka qaban karaa adi laakiin waajib ku saaran waxa waaye inaa wax ka qabatid inaa cunugaaga difaacdid inaa cunugaaga wax kasta aa u qaban kartid inaa u qabatid si oo kalsooni u yeeshto cunuga kalsoonida oo kalsooni la-aan ku dhacdo waayo cunuga ugu dhib badan adduunyadaneeto cunuga oo halaabo kaas waaye so wax kasta aa awoodid soo bisaa cunugaaga oo kalsooni u lahaado oo u fahmo inaa nin fiicanaan ahay cid fiicanaan ka dhashtay dadkeyga daba taagan mas-uuliyaadaan leeyahay inaan ka baxa waaye si aan mustaqbal u yeeshto so anoo hadalkan idinku sii dheereynay just halaasaa rab inaan idiin soo gaarsiiyo maanta waa mahadsantihiin insha allah iyo ismaqal wacan and wellness with ikram asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu